bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waraadka wararka waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya 9 jamhadood oo ka dagaalama gudaha Itoobiya oo sameystay isbahaysi ka dhan ah dawladda Abiy Ahmed xildhibaanada golaha shacabka dawladda federaalka Itoobiya ayaa sheegay in ay ka qayb qaadanayaan dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya dawladda Ingiriiska ayaa muwaadiniinteeda ku sugan dalka Itoobiya waxay ku amartay inay iskaga baxaan xogayaha arrimaha dibadda dawladda Mareykanka ayaa waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadda ka socota dalka Itoobiya waxaana dhinacyada dagaalamaya ugu baaqay in ay joojiyaan dagaalka qodobadaas oo faahfaahsan ayaad goordhow daawadayaal daawad doontaan balse daawade waxaynu kaa codsanaynaa inaad janaalkeena raadka wararka subscribe saartid muuqaalkana la egsaartid oo sii sheer gareysid gambaleelka furo si ay muuqaaladeena si degdeg ah kuugu soo gaaraan 9 kooxood oo dawladda Itoobiya ka dhan ah ayna ku jirto kooxda TPLF ayaa isku raacay inay sameystaan isbahaysi ka dhan ah maamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed arrintan ayaa cadaadis hor leh saaraysa Abiy iyadoo mucaaradku ay ku siisiqayaan caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa balse xukuumadda Addis Ababa ayaa sheegtay inay ka guuleysan doonto ayna sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto kooxda mucaaradka ee Tigreega laba kamid ah kooxaha kamid ah isbahaysigaas ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxay u xaqiijiyeen jiritaanka isbahaysiga cusub isbahaysigan oo lagu magacaabo United Front of Ethiopian Federalists and Confederalistic Forces ayaa waxa sidoo kale kamid ah TPLF oo dawladda Abiy la dagaalamaysay muddo sanad ah dagaalkaas oo ay ku dhinteen kumanaan qof halka in ka badan 2 milyan oo kalena ay guryahooda ka qaxeen kooxaha isbahaystay ee gaaraya 9 ayaa waxa ay heshiiskooda ku saxiixdeen magaalada Washington ee dalka Mareykanka ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Geeska Afrika ayaa ku sugan magaalada Addis Ababa waxa uu kulamo la yeelan doonaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo golihiisa wasiirada afayeen u hadlay jamhadda Oromada ayaa waxa uu sheegay in isbahaysigan cusub oo ka wada shaqeyn doono sidii loo ridi lahaa dawladda haatan xukunka Itoobiya haysa iyo sidii loo dhisi lahaa maamulka meel gaar ah Ola iyo TPLF ayaa horay u la dagaalamayay dawladda Abiy iyagoo sheegay inay qabsadeen dhowr magaalo ayna ku dhow yihiin caasimadda Addis Ababa waxaa la filayaa in isbahaysigan cusub saacadaha soo socda ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan magaalada Washington ee dalka Mareykanka ciidamada xoreynta dadka Tigreega ee loo yaqaan TPLF waxaa la aasaasay sanadkii 1975 xilli 100 milyan oo qof oo ku nool Afrika iyo bariga dhexe ay dalbanayeen isbedel iyo xorriyad dadka dalbanaya isbedelka waxaa kamid ahaa dhalinyaro Itoobiyaan ah oo ku noolaa gobolka Buuraleyda ee Tigray kaliya sanad ka hor xilligaas Haile Selassie oo ahaa boqorkii ugu dambeeyay ee Itoobiya ayaa dilay qaar kamid ah saraakiishii waday kacdoonka ee dhiirigelinayay kooxaha sida TPLF isagoo soo rogay xukun adag gudaha Tigray waxaa ka jirtay caro muddo soo jiitamaysay oo loo qabay kooxaha kacdoonka ka wada gobolka dad badan ayaa xusuusta ciidamadii hubeysnaa ee sanadkii 1943 la baabi'iyay markan hogaamiyaasha TPLF ayaa wacad ku maray inay u hiilin doonaan dhalinyarada isbedel doonka ah inkastoo dabayaaqadii sanadihii 1970yadii ay TPLF aad u koreysay haddana sanadkii 1978 waxay kooxdu lahayd qiyaastii 2000 oo dagaalyahano ah 2 sano kadib waxay aruursatay ciidan intaas ka badan kooxda xoreynta Oromiya ee loo yaqaan Ola waa xisbi siyaasadeed oo Itoobiya laga aasaasay sanadkii 1973 waxaana aasaasay dhalinyaro ka soo jeeda beesha Oromada oo ah tan ugu ballaaran dalkaas iyadoo ujeedkoodu uu ahaa inay gaaraan isku tashi ayna maamulaan gobolka Oromiya iyo qaybaha ay Oromadu ka degan tahay gobolka Amxaarada Ola oo sanadkii la soo dhaafay ka goosatay garabka hubeysan ee OLF ayaa 30 sano ee la soo dhaafay dawladda Itoobiya kula dagaalamaysay galbeedka iyo koonfurta gobolka Oromiya kooxdan iyo kooxda TPLF ayaa cadawtinimo raagtay isku qabay ilaa sanadkii 2018 oo uu xilka qabtay Abiy Ahmed iyadoo haatan TPLF ay qudheedu ka goday dawladda waxay labadoodu sheegayaan inay leeyihiin hadaf guud baarlamaanka Itoobiya ayaa 5 bishii July liiska argagixisada ka saaray kooxaha OLF oo ah garab ka hubeysan ee xoreynta Oromada iyo kooxda xoreynta dadka Ogaadeniya ee ONLF balse kadib dagaalkii ka qarxay gobolka Tigreega sanad ka hor
dowladda Abiy Ahmed ayaa Ola u aqoonsatay urur argagixiso. dhowaan kooxda ayaa sheegtay in sirdoon iyo istiraatiijiyo ay la wadaagayso xoogagga Tigreega ee waqooyiga ku sugan oo doonaysa inay ku sii siqdo caasimadda Itoobiya Addis Ababa. hadafka ay wadaagaan ayaa ah in la rido dowladda Itoobiya. xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalka Itoobiya ayaa sheegay inay doorkooda ka qaadan doonaan dhaqangelinta xaaladda degdega ah ee lagu soo rogay dalka Itoobiya si loo ilaaliyo jiritaanka iyo madaxbannaanida qarannimada Itoobiya. xildhibaan Dina Mufti oo xubin ka ah golaha ayaa sheegay in dagaalada military, dhaqaale iyo dacayada ee ka dhanka Itoobiya ay caqabad ku noqon doonaan jiritaanka dalka. sidoo kale xildhibaanada ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in lagu dhawaaqo xaalad degdeg ah si loo badbaadiyo dalka Itoobiya. xildhibaanada ayaa sheegay inay ka qayb qaadan doonaan dagaalada ka soconaya dalka Itoobiya. dowladda Ingiriiska ayaa muwaadiniinteeda ku sugan dalka Itoobiya ku amartay inay gudaha Itoobiya isaga baxaan inta diyaaraduhu shaqeynayaan. dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in loo baahan yahay in shacabka Ingiriiska ay si degdeg ah uga baxaan dalka Itoobiya. horey dowladaha Mareykanka iyo Ruushka ayaa muwaadiniintooda ku sugan dalka Itoobiya waxay ugu baaqeen inay si degdeg ah uga baxaan. dowladaha Mareykanka, Ingiriiska iyo Ruushka ayaa ka cabsi qaba in dadkooda lagu dhibaateeyo gudaha dalka Itoobiya, waxayna ka digeen xaalad halis ah oo ku soo wajahan dalka Itoobiya. xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Antonio Blinken ayaa qoraal oo bartiisa Twitter-ka ku soo qoray waxa uu ku sheegay in loo baahan yahay in la joojiyo dagaalka ka soconaya dalka Itoobiya. colaadda Itoobiya waa in la soo afjaraa, wadaxaajoodka nabadeed waa inuu si degdeg ah u bilaabmaa iyada oo aan wax shuruud ah lagu xidhin, ayuu yidhi xogayaha guud ee arrimaha dibadda dowladda Mareykanka Antonio Blinken. ergeyga gaarka ee Geeska Afrika u qaabilsan Mareykanka iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay tagay dalka Itoobiya, gaar ahaan caasimadda Addis Ababa, halkaas oo ay ka bilaabeen wadahadallo lagu dhexdhexaadinayo xoogagga jamhadaha iyo dowladda federaalka Itoobiya. wararkii ugu dambeeyay ee wafdigaas laga helaya ayaa waxay sheegayaan in ay la kulmayaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya saacadaha soo socda, waxayna kala hadli doonaan dagaalada culus ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. sidoo kale wafdigan ayaa la sheegay inay dhanka khadka taleefanka kula hadli doonaan xoogagga jamhadaha ee ka soo horjeeda dowladda Itoobiya. ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa maalmo ka hor waxa uu dowladda Mareykanka ku eedeeyay in ay taageerayso jamhadaha isla markaana ay gadaal ka riixayso xoogagga Tigreega. waxa uu sheegay Abiy in dowladda Mareykanka ay taageero weyn u muujisay xoogagga Tigreega. xoogagga Tigreega ayaa waxay ku wajahan yihiin caasimadda Itoobiya Addis Ababa, waxayna dowladda Mareykanka ugu baaqday in ay ka baaqsadaan inay gudaha u galaan caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa. guud ahaan warka aad ka daawanayseen raadka wararka daawadayaal waa inaga inta.